markastoo inaga isbedel dhacayo ama doorashooyin ay soo dhawaadaan dadka maxaa ku dhaca kuwa miyiga iyo kuwa magaaladuba way warwarayaan wartalo qoladii mucaaridka iyo muxaafidka halka isla maraya talo goorma la isu baxaya talo goorma siiriga la isku afuufaya la beeri lahaa dhulka la hagaajin lahaa reer saban nimankii la oran jiray ilaahay wuxuu ku eedeeyay in dhul wanaagsan ilaahay uu siiyay kadibna nicmada ay saluugeen kadibna ilaahay xagga kale uu rogay washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafuur ilaahay uu mahad qadal wanaagsanna waa haysataa rabbi wanaagsanna waa haysataa cidina inagama dal wanaagsana deeqdu ilaahay na siiyayna way badanta waa weyn waxa kamid ah ummaddu waxyaabaha ay ku horumaraysa quraanku ina barayo النظام السياسي المستقر نظام كود السياسة إنه يهي متسوغان وددكو أين هرته هجامين ليه إسلامكم ما أقول أمة المسلمين توني بلا هجامين نقضاء أما بلا مدح نقضاء لا يصلح الناس فوضى ددكو كربص منكم مسعى عن قرار دين يضلك يضدك أنتم بقوا خرابية وحين أقولها يوضدني من كلام مريم haddii afarta koona la isaga imanayo nin taraafi aan istaagin darawaliinta meesha maraya aqli ay ku kala baxaan ma leh mid waliba ka kala oranaya de adigu reefas u noqo de maxaan ugu noqonayaa adigu noqo laba saacadood baaba la soo taagay laakiin hadduu nin taraafi halka istaago mid walba farta saa ku yiraahdo wadada si wanaagsan baa loo marayaa soo adiga ugu warwareegay wayn baa yahay waqtigayga ma gaarin ma filaya nidaamka siyaasiga ahi jeeru noqdo mid sugan umadu xadaarad ma leh marka waxa la oran karaa inagu midalan waxaad u fiirsataa markastoo inaga isbedel dhacayo ama doorashooyin ay soo dhawaadaan dadka maxaa ku dhaca kuwa miyiga iyo kuwa magaaladuba way warwarayaan wartalo qoladii mucaaridka iyo muxaafidka halka isla maraya talo goorma la isu baxaya talo goorma siiriga la isku afuufaya waxaasaynu ku jirnaa maxaa keenay waa xadaarad yaraanta ummadaha kale dee diin bayaan ahayn laakiin arrimahoodan dunyada ay ka horumareen waxyaabaha u daliilka waa ka mid ah nidaamkooda siyaasiga sugan yahay wadamada qaarkood marka madaxweynaha la dooranayo ama baarlamaanka la dooranayo ama golayaasha la dooranayo dad badan baan ogaaninba oo marka dambuun kuwa soo baxay meelaha ka yar waraysta ama kuwa la doortayba garan waaya oo ila horta yaa madaxweyne loo doorto yaa golahii baarlamaanka ku soo baxay halkan aynu joogno dadku shaqooyinkooda iska wataana koox gaar un baaba wixii lagu kala saaraya marka haddii aanay nidaamkooda siyaasiga aanu ahayn mid mustaqir ah oo sugan oo waxa lagu heshiiyay oo sax ah oo aan dulmiye xadgudub lahayn ku soconaya hadaanu ahayn xadaarid ma taalo mar walba warwarkaasa ayaa haysanaya taasina waa ta quraanku naba siyaabo ku sugmi karana de aayatul umaraa wal ra'iya aayaadka ka hadla madaxdiya raciyada iyo dastuurka u yaala ayaadka dhageysan doonta tafsiirkooda ka qaadan suuratu an-nisaa inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bihi madaxdii buu ilaahay la hadlo wuxuu ilaahay leeyahay wuxuu rabbi idin faraya amaanada ina ehelkeeda gaarsiisaan oo dadku waxay xaq u leeyina marisaan waxa kale oo idin faraya dadka ina cadaalad ku kala xukuntaan waa waajibkii saaraa dadka raciyadana ilaahay uu la hadlo wuxuu yiri atiicu allah wa atiicu rasuula wa ulil amri minkum dadka madaxda ah ilaahay adeeca oo rasuulka adeeca ka tala qaata oo madaxdana ka tala qaata wixii rabbi iyo rasuulaydiin jideeyeen idinku hagaya hadday dhacdo marka in la murmo manhajkii baa u yaala waa ka ilaahay la fiin tanaazactum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuul haddii la murmana de manhajka hala raaco madaxduna kama weyna raciyaduna kama weyna ida waa madaxdii iyo manhajkii iyo shacabkii quraanku saasuu inoo baraya marka la doonayo in la horumaro in arrinta dadku